Ninkan waxaa lagu magacaabaa Cabdiweli Maxamed Xasan. Waa mid ka mid ah maalqabeennada Soomaaliyeed ee hantidoodu ay malaayiinka kor u dhaaftay. Maxaad ka ogtahay mashruuca weyn ee tobanaanka sano soconaya ee uu ku dhisayo magaalo cusub oo gudaha dalka Kenya ah? Warbixintan ayaan ku eegi doonaa magaalada yar ee laga dhisayo waqooyi bari ee dalka Kenya iyo hantiilaha Soomaaliyeed ee malaayiinka dollar ku bixinaya. Muuqaalkana sii faafi iyadoo Kenyaankii u dhashay dalka Kenya ay ku qaylinayaan in Soomaalidu ay dhaceen dhulkooda, ganacsiyadiina ay la wareegeen. Mid ka mid ah ganacsatada ugu jeebka buuran Soomaalida ku nool Kenya ayaa bilaabay mashruuc aan horey loo arkin. Ninkan oo lagu magacaabo Cabdiweli Maxamed Xasan oo ah milkiilaha BBS Mall ayaa u ruqaansaday mashruuc soconaya 10 sano kaasi oo lagu dhisayo magaalo dhan. Mashruucan oo ku kacaya malaayiin dollar ayaa damaanad qaadaya dhismaha magaalo yar oo ku taala Tatu City ee dalka Kenya. Waa dhismaha goob koobi doonta guryo waaweyn oo isku tixan, suuqyo ganacsi oo ballaaran, iskuulo iyo goobo waxbarasho oo ay sii dheer tahay goobihii dadweynaha. Mid ka mid ah dadka ugu jeebka buuran ee Soomaalida ku nool dalka Kenya, Cabdiweli Maxamed Xasan ayaana ah maalgeliyaha mashruucan casriga ah oo la jaan qaadaya kuwa ka socda dalalka horumaray ee Sacuudiga iyo Masar oo kale. Cabdiweli waxa uu caan ku yahay dhismihii BBS Mall ee xaafadda Islii, kaasi oo qiyaastii lagu dhisay 25 bilyan oo Kenyan shilinka ah oo u dhigma ku dhawaad 200 milyan oo dollar. Hantidiisu ma aha kaliya intaasi, waxaase uu leeyahay ganacsiyo waaweyn oo bulaalay, maalgashi iyo xaddi lacageed oo aan la qeexin tira ahaan. Inta badan dadka Kenya ayaa muujiyay naceebka ay u qabaan Soomaalida bilihii la soo dhaafay, iyaga oo sheegay in ay Soomaalidu la wareegeen ganacsigii Nairobi oo dhan. Waxaa sidoo kale lagu eedeeyay Soomaalidu in ay la wareegeen guryaha dadka Kenyaanka ah, iyaga oo Kenyaankuna ka cabsi qabaan in dalkaba ay Soomaali kala wareegto. Taas oo banaanka u soo saartay naceebka dadka Kenya ay u qabaan Soomaalida. Hase yeeshee waxaa sii kordhaya weli ganacsiyada Soomaalida ee dalka Kenya, waxaana ka mid ah mashruucan casriga ah ee ka socda waqooyi bari ee dalka Kenya, gaar ahaan gobolka Kiambu, kaas oo wax badan ka bedeli doona dhaqaalaha gobolka iyo midka dalka Kenya. Qiyaastii in ka badan 500 milyan oo dollar ayaa ku baxaya mashruucan, waana mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee Kenya laga sameeyo taariikhda. Dhismaha magaalo yar oo casri ah iyo nolol qaabaysan oo leh wax kasta waa hadafka maalqabeenka Soomaaliyeed. Laakiin dad badan waxa ay jeclaan lahaayeen in dhulka Soomaaliyeed uu ka sameeyo mashruucan Cabdiweli Maxamed Xasan. Bal adigu aragtidaada hoos nagula wadaag, muuqaalkana laag saar oo sii sheer gare